اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت مود السلام يا مدنيال مسؤولين تكلدون قيمة قبلة دقموينك يا صحافة بندي سلام يا أنت أمرك لا قدو وحنا هذه دكم هذا نقيا دكم هم بلينا يا تابر كان دين لما هذا مدة اللي حبلودي وحقق أول بقصة شرتين دكتور صوص مرتين ما قلت اللي كانوا يسأرك إنسان هيدين نين مقرن هين إنما يرو قريود الله كنا هيدين والبوح بيقانا قال قري سكحجة ما أنت لكن سهر الله شغلين والبوح يقانا قبله طل كردم بوح يقانا عد أو قبل خط قبل عيدك قبل وشوكته أو قبل خط قبل وقرع يا هبل والله الله يا هبل وأنت بدين مانا يا وصبح يا فصحيح كسب بيجي قبل كلاي مانا يا مركا chance في عم بهشان فايدة بدنا وهشان آدي بعد نكون بلينا يا وحلو بهاي نسيد عشان إيه ما قال حضرتك سامعها ضد بدن ولا وحلاقي بنتي نلقى فردا إن أنا كوبي سكاشكي واحد كوري يقف فردا أنا ما لبي سكاشكي أو ما كودير تيم بقى أيا لقي يا با إيه ما قال حضرتك ساقار دلني يلو حي مقعد قبضن سمعنا سد سنة يشتري ما حنا يشتري محينه هاينا محينه قبرنا محينه كردني وحويان صدق سنة أما دورات سنة كهر ماشي نسي هاي نيك قرنا يا ما أنت عين كام مراهدين أنا وحنو زوج شوقي مقالين هرجيسة وسومالان jirtay madaxweyne leedahay oo bir dhaw yahay markii dalka la qabsaday waxa waliba 92 ahayd ayaa maalmaha kamid ah waxaan ka sheekeynaa yare maalmaha kamid ah nin ciidamadii hayo jabhadii ahaaba waxa xanuunsay abiba sakraad noqday deedna waxaan xageen lacag ugu doonaa waxaan u tagnay Cabdilaahi Darawal oo taliya qaybta koobistanaada Cabdilaahi Darawal wuxuu noo soo qoray lacagtii muxuu ku qorayaa waxa la leeyahay wax lagu qoro warqad ayaa la leeyahay buug jeebka yar maqarsa buug jeebka yar telefoonada lagu qori jiray ayaa hal xaashe baa ugu taala Cabdilaahi Darawal marka warqadda wuxuu qorayaa Maxamed Kaahino siriga shaandhiga ayuu leeyahay lacagtaasi ninka warqad yar buug jeebkii ayuu warqadda ku qoray qalankii faahfaahintii lacagtu qorayaa labadii bugbo buuxsameen buug yar buug jeebka halkii xaashidaha waanu soo qaadnay halkan imka dibdemiskii agtida bartan sijeedkan ayaan Maxamed Kaahin ka helay waxaan ku lacagtaas aan doonaa ninkan aan doonay ilaa 6 baan nahay waa bii sakraadiyo wuxuu waaye keena waxaan ku qoro qalin uu istaa laakiin warqad baan hayn halkaas aan istaagtaagno meel walba oo marro warqad baan weyni markii dambe aan dukaan galay waxaan ku dhaar istiga sigaarka noo jeex hadda bankiga loo qoriyo warqada oo lacagta laga qaadaya istiga sigaarka noo jeex de wuxuu istig waxaan haystaa qaybtan oo xisaabaadkan ku qoraa reerahan bilka siiyo istigi baanu saa laba kala jeexnay sidaas oo kale istigi ayaanu saa kala jeexnay waanu kala jeexnay qayb buu noo jeexay markaa odaygi tii baan noogu qoray Maxamed Kaahina warqadii oo uu ku lifaaqay tii kale qodax baan galool ka goosanay intaan qodaxiisa u gelinay ayaanu bangiga la tagnay bangiga waxa yaala oo lacagta lagu garaaca buugaagta yar maartay xaashi laho xayir diciyalku qaataan waa ka biinka yar dhaxaleed labada waraaqodba biinka yar laga saaray israacaan bangiga waxa yaala oo waraaqa bangu haysta waa buuga biinkaas laga saaraya waxa la gelinayaa kaarboonka teebka lagu garaacaya oo lagu dalbanaya markii lagu gudbinay qaybta kale lacagta ka qaadanayso haddaba Soomaaliland halkaas ka soo bilaabantay taagniid maxaa la qabsaday markaa waa ogtiin waxaanu dadka isgaarsiinta iyo maxay leeyahay waxa soo dhan ugu horeeyay adduunyada tiknoolajiyada casriga marka ay ruux macaash bariga miidaan jirin kulay idinku miidaan jirin laakiin waxa soo gaadhay Soomaaliland oo cayn kana ho Soomaaliland maxaa la qabtay barwaaqo ma moodisay dhibaato meeshan ahayd oo dhibaato badan baa loo soo maray marka jaamacadaha wax walba way joogaan wax kasta way yeelaan marka waxa leeyahay namada dhalinyarada hay waxa la leeyahay waxa la qabsaday wax badan oo meel sirooyin ka soo bilownay meel fiican oo mar alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin ma inaan gaarin wali halkeen doonini mana dhawa waxana looga baahan yahay dhalinyarada laga rabaa inay gaarsiiyaan halkii maxay ahayd ay halkeen doonini inay gaarsiiyaan ayaga laga rabaa dawladda wax laga sugo maaha waa in qof kasta waxa weeyaan dhalinyarada ka soo baxaysa in wax baratay aadka wax u baratay inay wax inoo abuuraan baynu baahanay oo aqal cusub hayana wax inoo abuuraan oo tadawur la sameeyo baa loo baahan yahay taana caynkaasaan leeyahay dhalinyarada dhamaantoodba aad iyo aad baa idinku hambalyeynaya soolteekana maayirka Hargeysa aad buu mahadsan kol saaq maanta awrku iga furtay wuu maanta awrku bixinaya aad buu isagoo mahadsan yahay waan idin hambalyeynaya sidaasaan idinku xuleeyahay shirku insha Allah taala maayirna wax kula dardaarmaya iyo mas'uuliyiinta ka timid gobolada inamada tacab badan baa la geliyay inamada tacab badan baa la geliyay tacabka badan la geliyay waxa la idinka rabaa idinkuna inay kala sii dadaashaan inamada dar yeeshaan inay idinkuna ilaalisaan ka horeysa idin baahay maamulada gobolada ka yimi waxa kale oo ka gaar faa'iideysanaya bacadlayaasha ama suuqyadan ganacsiga ay waaweyn magaalada Hargeysa habeenkii dhow khatarta ka dhacday oo kii maayirku sheegay
arrintaasina waa arrin muddo badan soo taagan bahayd qolada dabdamiskuna waxay ka soo qoreen riboodo badan ayay ka soo qoreen meeshaasi riski badan iyo khatar badan inay kala socoto haddii aan si degdeg wax looga gaadhin waxaa dul mara 1 milyan oo xadhig oo leer baa dul mara oo shirkadaha leer ugu mariyeen haddii shool yar qabsado waxaan ku waa magaalada dusha ka meynaysan way ku qarxaysaa baan ku hal waxna ka badbaadi maayaan meel loo marana ma laha marka maayarka caasimadda taliyaha ciidanka booliska labadoodaba waxa faraya ama ku amraya gudoomiyaha gobolka meesha 7 cisho gudahood ugu badnaan dadweynuhu waa in horta ku baneeyaan meeshu ay ku baneeyaan dariiqada iyagana waxa la farayaa ama ha baneeyaan dadku ama ay baneeyaan hadii baneeyaan waayaan muddo way gudihii inay meesha ku baneeyaan oo awood wax kaga qaadaan dadku hadday wax ku maqli waayaan dhigaal loo sameeynaya ma aha inaanu eegno hadhow aanu calacallo awood baa lagu fulinayaa saas aynu soo ognahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.